magaalada Burco in ka badan 300 oo kamid ah aqoonyahanka gobolka Togdheer ayaa maanta u fadhiistay imtixaan ay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland qaaday. Imtixaankani ayaa loogu tartamayaa 50 kaalmo shaqaale oo ka mid noqon doona shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamuud Geelle oo ka hadlay goobtii lagu galayay imtixaankani ayaa sheegay inay si cadaalad ah ugu xaqsoori doonaan dhalinyarada u fadhiisatay imtixaanka, waxaana uu sidoo kale halkaasi ku dhaariyay macallimiinta saxaya imtixaankani. Imtixaankanaynu sidnoo 3 nooc u kala baxaya oo ay ku tartamayaan aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Togdheer, kala hufid iyo dib u eegid iyo diyaarinta intii shuruudaha buuxisay markaan eegnay. waxa saaka imtixaanka u fadhiya 328 qof oo aynu ka doonayno 50 qof ee ugu sareeya. Insha Allah inta guuleysata waxay ka hawlgalayaan xarumaha kala duwan ee gobolka Togdheer oo shaqaale dawladeed u baahan inay ka shaqeeyaan. imtixaamadan aynu soo dhaadhicinay ama maamul daadajintan socotay ma aha un shaqaaluhu kaliya la soo dhaadhicinaya shaqadii dawladda soo dhaadhacaysa. waxa la doonayaa gobol walba inuu adeegii dawladnimada halkiisa ku helo si aanu ugu safrin caasimad ama meel kale ugu doonan. sadarteed kontonka aqoonyahan ee maanta soo baxa waxa lagu kala xidhi doonaa xarumaha kala duwan ee gobolka Togdheer si adeegaasi gobolka uga socdo. sidoo kale macallimiintii kormeerkoogii baa socda iyo caafimaadka kormeerkiisa iyo hay'adii kala duwanaa ee hawsha ku shaqalaha iyaguna gacanta ku haya in caafimaadka iyo waxbarashada soo saaraan. imtixaamadii kale maamulka iyo sharciga iyo maaliyadda imkaynu wadnaa. dadka guuleysta waxay ka shaqeyn doonaan dhowr iyo 40 institution ee dawladdu leedahay, wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan. waxaan idin rajaynayaa calaf iyo qalin wanaagsan in imtixaamadu soo dhaadhacaan oo gobolka kugu yimaadaan oo guriga agteeda ay soo gaadhaani. waa runtii dadaal weyn oo aynu doonayna dawladnimadu inay saasoo kale u soo daadegto khayraadkeega deeqaheega iyo shaqaaleynteeduba inay saasoo kale u soo dhaadhacdo. inta tartamaysa waxaan u rajaynayaa calaf wanaagsan. inta guuleysanaysa qalinka iyo dadaalka ka soo waa quud iyo qadar qoran oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore qoraya cidda guuleysata. inaguna dadaalkii asbaabtii baynu la yeemanaynaa. waxaan inta qof bilaadan ku dadaalaynaa dhexdiina cadaalad ku kala baxdaan, nidaamad ku kala baxdaan. intii qalinkoogu soo saaray noqoto inta ugu sareysa annagoo ku kalsoon macallimiinta aan wadano oo runtii aanan islahayn dadka way kala garanayaan waxay ka kala leeyihiin haddana dana gaara. haddana waxaan ku ilaalinaa in imtixaankaasi noqdo mid iyaga dhexdooda ku kala baxa annagoo waraaqaha eegayna oo nidaamka eegayna oo kormeerka ilaalinayna. haddana maadaama dad muslim nahay waxaan qalbiga qofka ku sii adkaynaa in hortiina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hortiisa aanu macallimiinta iyo annaguba ugu dhaaranay inaad idinku intii noogu sarreysay soo bixi doonto. 30% dadka guuleysanaya waxay noqon doonaan hablo, 70% waxay noqon doonaan wiilasha, taasoo la macnaa 35 wiil iyo 15 gabdhood. waxaan ku dadaali doonaa inaan degdeg u saxno natiijaduna hore u soo baxdo si inta hawsha ku guuleysatay ay hore ugu soo guuleystaan oo hay'adihii kala duwanaa ee ku xidhnaayeen aynu gaarsiino. waxaan codsanayaa Ilaahay mar labaad u ballan qaadnay inaynu dhammaanteen aynu cadaalad taxanka ku qaadayno. waxay igu wallaahi waxay igu billaahi waxay igu tallaahi inaan ardayda cadaalad ku kala saaro oo qalinkooga waxaan inaan u eegin. ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC TV Burco.